qaar ka tirsan maamulka iyo macallimiinta jaamacadda Eelo ee magaalada Boorama ayaa waxay ardayda barata caafimaadka gaar ahaan neerasta ay u qabteen tababar la xiriira daryeelka hooyada iyo dhallaanka. Tababarkani oo uu socday ardaydan oo ay tiradoodu dhan tahay 26 arday maalmihii u dambeeyay ayaa waxa maanta tababarkaasi lagu soo xidhay jaamacadaasi. Xidhitaanka tababarkani oo ay goobjoog ka ahaayeen qaar ka tirsan maamulka iyo macallimiinta wax ka dhigta jaamacadaasi ayaa waxa ugu horeyn halkaasi ka hadlay oo ka warbixiyay tababarkani iyo waxa uu ku saabsanaa Dr. Maryan oo ahay digtoorada bixinaysay tababarkani waxana hadaladeedii kamid ahaa marka kulli waxyaabaha lagu soo qaatay BMOC training dhowr cashir baa kamid ahaa ama dhowr procedures la qabanayo hooyada lagu badbaadinayo baa kamid ahay saad arkaysan BMOC training wuxuu ka sheekeeyaa sidii loo yareyn lahaa maternal and child mortality hooyada iyo ilmaha dhimashada ku imanaysa in la yareeyo ayaa loogu talagalay especially shaqaaluhu markay as a student imika markay baxaan arday walba wuxuu tagi doonaa meel uu shaqo ka helo ama ha noqoto magaalada dhexdeeda ama ha noqoto magaalada banaankeega whatever meeshu shaqo ka helo tagaya soo marka waxa la siinayaa may hore u soo qaateen oo imikana loo update gareynaya ama la xasuusinayo dib kor qaas loogu sameeyay hal meel walba uu ardaygaasi tago inuu haysto hubkii uu ku shaqo gali lahaa ama uu ku hawlgali lahaa laguna kalsoonaado ardaygaasi haduu halka joogo la yiraahdo haduu halka hebel tagay waan ku kalsoonay waan kaga seexanay dadka qaarna waa lagu kalsoonaadaa qaarna waxa la yiraahdaa haduu hebel joogo kulay ku talagal ma lahayn hal raaciyo wax kale hal raaciyo qofka dad baa lagu daba daraa laakiin I think waxaan filayaa insha Allah saan ku rajo weynahay inaad noqon doontaan kuwii lagaga seexanay halka loo diro ama hooyada loo dhiibo iyo dhallaanka inaad sidii loogu talagalay loo badbaadin karo intii Ilaahay ka sokayso wixii Ilaahay keenay waa qadar waxba ma hor istaagi karno laakiin wixii kale ee hooyadu u dhimanaysay management bay hooyadu u dhimataa managementkii waxaan filayaa marka in aad iyo aad looga soo baxay runtii markaan eego waxa laga qaaday training markuu bilaabay pretest baa loo sameeyay pretestigii la sameeyay ama aan ka qaaday markay ardaydu bilaabayeen examka casharka training noo bilaabayay iyo kii dambe ay galeen marka la isbarbar dhigay runtii difference badan baa u dhaxaysa intaanan pretest post testiga aan qaadin laftigeega every session markaan dhamayno waxa la weydiinayay ardaydu discussion bay sameeyeen already discussionka ay sameeyeen wuxuu tusaale kuugu yahay ardaygu inta uu knowledge gain gareeyay ama intuu dib u soo xasuustay wixii loo diray soo aad iyo aad baan horta runtii idinku mahad celinayaa intii aan wada joognay insha Allah iyo inta dambe wada joogi doonaan laakiin waxaan rajaynayaa wixii aad qaadateen iyo inaan noqon waxaad buu ku qortaan oo meel yaal laakiin waa inuu noqdo maxay wax memory-ga galo long term memory-ga galay oo la akhriyo without control wax markuu kugu soo dhaco hooyadii iyo ilmihii ay ku yimaadaan immediately waa inaan shaqadii qabano runtiina waa inaan noqono dad responsibility-ga ka soo bixi karay geesta kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka tirsan macallimiinta culumta caafimaadka ka bixisa jaamacadda Eelo iyo qaar ka tirsan maamulka jaamacadaasi waxayna ardaydaasi tababarka loo soo xidhay ay kula dardaarmeen inay wixii la baray ay u adeegaan bulshadooda markaan eegnay training-kan ahmiyadiisa iyo faa'iidada ay maanta ardayda senior-ka ay baxaysa uu leeyahay ayaan soo select gareyn xaqiiqatan training-kan BMOC inaan la siiyo ardayda ay macallimada runtii xirfadda iyo aqoonteeda iyo kartida leh ay training-ka hogaamiso runtii anaga maamul ahaan ama department ahaan waxa naga go'an inaan had iyo jeer ardayda capacity building fiican u sameeyno kulli ajendaha weyn ugu jirta training-nadan iyo kuwa kale oo runtii muhiim u ah inaan insiino oo schedule-ka weyn ugu jirta insha Allah markuu waqtigu yimaado iyadana waan ka amba qaadi doonaa halka runtii training-ka ahmiyadda leh waxaan idin siinayay waxa weeyaan maadaama aad tihiin groupkii baxaya hadda jaamacadda de intaad diganaysaan waxyaalaha kale capacity building ee muhiimka ana uu ka mid yahay runtii inaad weelaysaan ood ka faa'iideysataan ood halka aad kaga hadhin oo halka ka sii amba qaadaan ood had iyo jeer ku noqotaan ood practicalkiisii ku celcelisaan ayaa muhiima ood marnaba halka kaga hadhin macallimiinta iyo kulliyadu waa hage oo wuxuun bay ni tilmaamayaan laakiin cidda xagga inay ka sii amba qaada ay tahay oo arrinkaas si ballaaran oo waafiyo si baadha ay tahay ama si joogtaysa ay tahay waa iniga maanta waan haynaa practical theory-gi haduu Ilaahay raadana practical marka inaad capture juntaan aanad ka duwanaataan dadka kale meelaha jooga runtii ana soo qaadan waxaan tababarkayna soo qaadan runtii waxaan rajaynayaa waana iyo wacdi la inoo dhameeyay tusaalana waa la tusay runtii qof training Maryan aan uga mahad celinayna runtii say inta cishaha inii garab taagneed ay waxay garanaysaa runtii ay siisay
idinkana waxaan iiga filaynaa runtii inaad dee kolley ambassador baa tihiin beritole markaad ka baxdaan waxaad sugantihiin shaarkii jaamacadda hadhowtole markaad meesha tagto waxaa loodhan hiblaayo xaggo ka soo iyo hebel xaggo ka soo baxay jaamacaddaasuu ka soo baxay haddaad dee qof dhaqankii iyo ixtiraamkii iyo wanaaggii marka lagu arko cid kasta waxay odhan waa nin jaamacaddaasaan ciyaalkayga geysanaya taana ogaada waxaan inigu dardaarmi lahaa runtii maanta waad haysan cashirka gacan ku hayn buu u baahan yahay inaad wixii gacanta ku haysaan halkii ka sii wadaan hana daba gashaan wixii kale zaa'idaad u baahataanna runtii intaan joogo CDC-ga direct intaan waxaad u baahataan dhiinka u soo gudbisaan runtii waa laynii qaban sida ugu dhaqsiya xaladan sababta laydinku qabtaa wax kale maaha waa kobcin awoodeedun waxaa laydinka dhisayaa haddii ay jiraan meel aad daciif ku tihiin ama meel kaloo xoojin u baahan ama wax aydan soo qaadan oo markaa ka horas ahaan wax yar aad ku soo aragteen laakiin goobihii shaqada muhiim u ah sidii laydinka dhisi lahaan weeye trainingkani noqon maayo kii koowaad almost waxaan rajaynaynaa in trainno kalena oo at least iyo wax ka badanna inaad heshaan ilaa qalinjabintiina inta ka horeysa gacantaan idinku haynanaa waxaan doonaynaa idinka oo hubaysan oo markaasi cadowga waa ayaad la halgamasaan ma aha bukaanka laakiin waa jahliga waxaad jaahil ka taho dhan cadowba ayuu ku yahan u malaynayaa waxa aqoon darri kolkaad fiilka tagtaan ama goobahaad ka shaqaynaysaan inaydan la kulmin ayaanu ku dadaali doonaa insha Allah marka waxa sababta tariinada laydinku qabanaya waxay tahay in laydin hubeeyo oo cadowgaasi la jihaado kulli waxaan maanta halkan ugu dambeyn aan soo kacay waxay ahaydoon inaan trainingka muddada soo socday aan ku dhawaaqo inuu xidhan yahay maalintii ugu horeysay waxaan ku dhawaaqay inuu furnaa maantana waxaan halka ka ilaaminayaa in trainingka ujeedadii loo qabtay u gaadhay idinkuna midhiheega aad haysaan waa inoo xidhan yahay insha Allah ardayda tababarkani qaadatay oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxay sheegeen in tababarkani ay qaateen uu ahaa mid ay wax badan ka faa'iideysteen waxayna u mahad celiyeen macallimiintii iyagu tababarkani siisay waxana hadaladoodii kamid ahaa muhiimada trainingkan uu noo lahaa hadii aan ka hadlo muxuu ahaa training aad aan ugu faa'iidnay dhammaan ardayda oo dhan waxyaabo badan oo iska ka bedelinaa nimka ay jiraan trainingku wuxuu ahaa BMOC facility training aan aad ugu baahnayn arday ahaan waxyaabo far badan aan ka faa'iideysanay isbedelka maalintii aan trainingka noo bilaabay iyo maanta isbedelka noo dhaxeeyana waa isbedel aad u ballaaran waxyaabo badan baan ka faa'iideysanay waxaan si gaar ah ugu mahad celinaynaa macallimadayada sharafta la qiimaha iyo qadarinta leh Maryan Maxamed Xuseen oo runtii ah macallimad maxay hadanayay aad u active maxay hadanay ku dayasho mudan role model noo anaga galaas ahaan iyo habla ahaan baan ku dayano oo role model noo ah oo iyadana si gaar ah u salaamay sidoo kale waxaan aad u salaamayaa dhammaan maxay hadanayay cid kasta soo qaban qaabisa barnaamijkan oo maxay hadanay isku soo dabariday iyagana aad baan u salaamayaa waxaan halkan aan ka sheegayaa in maxay hadanay trainingka faa'iidada uu noo lahaa ka arday ahaan waxaan sidoo kale halkan uga mahad celinayaa macallimadii noo qabanaysa trainingkan macallin Maryan oo runtii si maxay hadanay dadaal maxay hadanay noogu soo dhigtay annaguna run ahaantii aan uga faa'iideysanay sidii maxay hadanay loogu talagalay waxaan rajaynayaa inay maxay hadanay ardaydu uga faa'iideysatay maxay hadanay sidii ugu habboonayd waxyaabaha aan ka faa'iidnay trainingkana waxa kamid ahaa uu ka hadlayay maxay hadanay sidii loo badbaadin lahaa hooyada maxay hadanay uurka leh iyo maxay hadanay dhallaanka markaas waxaan rajaynayaa in dhammaan maxay hadanay ardaydu ay uga faa'iideysteen sidii loogu talagalay ugu dambeyntii waxaa halkaasi lagu guddoonsiiyey ardaydani tababarka loo soo xidhay shahaadooyinkii ay mutaysteen Sakariya Cabdi Sheekh Faarax Sakariya Saxane magaalada Boorama.